garanay raggii aan dooranay xildhibaanadii inay iscasilaan rajadii ka dhacday degmooyinka marag waxaan odayaasha sharci darada ku xidhan komishanka waa hor dhignay ma garanaysaa dowladdan isku sheega tiiraanye ay haysato xoog inay ku haysatay inay itaal ku haysatana iyada kala caddayn doonta dilkii loo geystay beesha ciise ee halkaa ka dhacay sanadna waana caddaynay wax kastaba waa hor dhignay waxaan ka qarinaynana ma jirto sidaana ha u ogaadaan raggii aan dooranay xildhibaanadii inay iscasilaan rajadii ka dhacday degmooyinka geerida madiida raggii aan dooranay xildhibaanadii inay iscasilaan rajadii ka dhacday degmooyinka وعدم بقرارو ودكا قراراتو ودكا بيتي وعدم بقرارو ودكا قراراتو قرار طويل ka gutade xumaantii daygooda oo dhacaan kama yeeli maayaan garaad qawiyo ka gutade xumaantii daygooda oo dhacaan kama yeeli maayaan goobtii kasay dadkada qodanta bay kugu gubahayaan kushayagaale goobtii kasay kaa gacantaday kugu gubahayaan kushayagaale wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu gaadhay degmada xariiran halkaasi oo uu dhinacyadii dhibaatadu dhex tiil dhinac kastaba uu dhankooda ula qaatay kulamo gooni ah kuwaasi oo wasiirku guula ka gaadhay kadib guura iyo galab carrow dabadeed waxaa wasiirku saaka kulan ballaadhan kula qaatay xarunta maamulka gobolka madax dhaqameedkii muddada xidhnaa ee ooda laga qaaday isagoo wasiirku halkaasina ka soo jeediyey hadallo dardaarana nabadda sida kaliya ku hoojin karaya waxa weeye ciddii wax kaysa
ibraahim xasan bacsane oo maanta u waramayay shabakada caalamiga Shinila News ayaa shirkiisan jaraa'id waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra isagoona ugu horreyn ka hadlay xuska 18 May isla markaana si weyn u soo dhaweeyay sidoo kale ibraahim xasan bacsane ayaa mahadnaq ballaaran waxa uu celiyay isla markaana si adag u nuucnuucsaday shabakada caalamiga Shinila News isagoona sheegay in ay maanta beesha ciise ugu jirto halkii BBC-du ay ugu jiri jirtay dadweynaha isla markaasina isagoo sheegay Shinila News inay tahay kaalintii BBC-da ugu jirto dadweynaha ku dhaqan daafaha dunida isla markaasina ay wararka gaarsiiso meel kastii ibraahim xasan bacsane oo shirkiisa jaraa'id ka hadlayeen waxa wili بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد runtii maanta waxa weeyaan maalintii la soo noqoshada gooni-sutaaga Somaliland waxa la yiraahdaa luntay 60kii la helay 19kii runtii maanta 18 May la xusayo anigu kulay shakhsiyan waxaan kaga qayb gali doonaa deegaankan degmada Saylac iyo Luqaya ama guud ahaan beesha ciise halgankii kaalin weyn oo mugle ayay ku lahayd la soo noqoshada madax banaanida Somaliland runtii halkan waxaan uga faataxaynayaa halgamayaashii ka soo jeeda beesha ciise naftooda iyo maalkoogaba ku waayay la soo noqoshada gooni-sutaaga jamhuuriyadda Somaliland runtii waxaan bulshadana ka codsanayaa in la xuso muddo 2 daqiiqo ah waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo dhammaan halgamayaashii mujaahidiintii beesha ciise ku naf iyo maalba weyday gooni-sutaagii jamhuuriyadda Somaliland ama dib u xoreyntii jamhuuriyadda Somaliland runtii ragga halkan mujaahidiinta ah kuma soo koobi karo waxaan xasuustaa Allah raxma Cabdilaahi Isaaq ducaale cali niman aad u badan oo maanta aan halkan aan urinin hebel iyo hebel runtii duqaydii maalintii gooni-sutaaga Somaliland lagu dhawaaqay waxa kamid ahaa rag aad u fara badan Umar Cismaan Yaabe geedi mataan cadar geeshaadan bile way badnaayeen Cabdilaahi Buraale Giiri Allah raxmat Mr. Sheikh beesha ciise 12kii baahaba oo u dhanaayeen gooni-sutaagii Somaliland runtii waxaan leeyahay guud ahaan iyo gaar ahaan naxariistana Allah siiyo dhinaca kale waxaan leeyahay oo soo jeedinaya wanimayo waxaan leeyahay nimankan iyo mas'uuliyiinta xukuumadda madaxweyne Axmed Siiraayo waxaan leeyahay war Faysal Cali Waraabe wuxuu yiri war constitution-kii iyo nabadgelyadii iyo formality-gii waan haynaa laakiin meeshii waxa ka maqan saami qaybsi runtii anagu wax badan baan dhaliilaynaa wax badan baan leenahay maanta oo ku xusaynaa 18 May inay naga maqan yihiin kuraas badan baa Somaliland naga maqan dulmi badan baa naga gaaray iyadoo cid kale xitaa noo adeegsanaysa cid kale ay nagu garaacdaa laakiin gooni-sutaaga iyo munaasabada iyo xafladda ma aha mid cid ma taqaana aan kaga habranayno waa mid wadankan degitaankiisa aan ku muujinayno waa mid aan ku muujinayno rabitaankayga waa mid aan ku muujinayno ummadda reer Somaliland inaan wax la wadaagno sidaa ka daalidgeed mabduuca intaasaan kaga baxayaa waa xafladii 18 May Shinila News sida BBC-da Soomaalidu kaalinta weyn ee mugle ay Soomaalida ugu jirto BBC-du ayay ugu jiraan ninka la yiraahdo Cabdisamed Maxamed Cabdilaahi oo runtii ku ah beesha ciise laf dabar oo u dhaga fudud oo u dhaga nugul wax kasta oo qadiyada beesha ciise lagaga hadlayo isla markaaba inuu qabto waxaan leeyahay ninkaasi waa nin dhalinyaro waa nin aad iyo aad u fiican cidii kamarad kulli kamaradu way ka maqan tahay hadda wuxuu isticmaalaa waa kamarad yar ina kaana in macnaha waa soo taro oo kamaradaasi laga qabtiro soo kulliba beesha oo danteeda uu ku qabanaya taana intaasaan kaga baxayaa dhinaca kale waxaan rabaa inaan ka hadlo jaaliyadaha inaan arrin aan halkan maanta inaan fursad ay ka faa'iideysto war walaalnimadu iyo mataqaanaa wada jirnimadu
qof kasta waa u dan mararka qaarkood waxaa dhaca in dee hadalla yaroo aan deelqaafa macnaha mararka qaarkood layska sheego waxaan leeyahay hadallada deelqaafka runtii yani loo fiirsan anuun kolley waxaan ahay qof dhabara waxaan jecelahay walaalnimada midnimada sidoo kale ibraahim xasan baasane ayaa waxa uu diiday inuu ka hadlo hadallo dilqaafa oo muddooyinkii ugu dambeysay kasoo yeedhayay odayaasha deegaankaasi lugaya kuwaasi oo salka ku hayay deeqdii raashinka ahayd ee deegaankaasi uu marabku ka tagnaa inaanu gaadhiniyeyn kale cabdisalaam maxamed cabdilaahi shiniila news saylac kadib markii deeq lacageed lagu soo hagaashiyey shabakada caalamiga Shinila News ayaa maanta waxaa si toos ah u gaarsiiyay anigoo ah Cabdisalaam maxamed cabdilaahi qoyskan oo hore ee u soo bahaysay shabakada caalamiga Shinila News ayaa maanta lacag cadadkeedu dhan yahay $1 oo deeqdaasi waxaa gaarsiiyay anigoo ah wariye Cabdisalaam maxamed cabdilaahi munaasabadii deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culimaa u diinka magaalada Xariir iyagoo mahadnaq ballaaran u celiyay dadkii iyagu deeqdan soo diray oo hormoodka ka yahay in Umar Nuur Sugaal isla markaasina kaalin libaax leh ka qaatay qoyskan yar ee danyarada ah qaarkood waxaa hadalladooda ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda Umar Nuur Sugaal oo ka madaxda yahay iyo inta kale ee soo caawisay Sweden dhamaantiinba ihsaan wanaagsan baad walaalayaal soo samayseen cadeediina wayna soo gaadhay iyadoo oo $1 ah boqolkiiba boqolna waan idinku mahadnaqaynaa in dadka jilicsan aad sida yacni u soo caawisaan waan idinku boorinaynaa wixiina gacanta ayaan maanta ku haynaa waan idin soo ducaynaynaa boqolkiiba boqol baan idin soo ducaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullah deeqdii way soo gaadhay boqolkiiba boqol waan iga gudoomaynaa maxay ahayd walaalahayo maxay ahayd idinkana ilaahay nin gargaaro annagana wayna soo gaadhay deeqda noo soo dirteen walaalahay inta maxay ahayd halkaa joogta si fiican baan iga guddoonaa si kastaba ha ahaatee qoyskan ayaa maanta deeqdani ku soo hagaagtay si weyn ugu baahnaayeen isla markaasina ay si weyn ugu diirsadeen iyagoona hadallo duco iyo dardaaran iskugu jirana una jeediyey isla markaasina wejigooda laga dheehanayay farxadaada u sarraysa maadaama ay deeqdani u baahnaayeen cabdisalaam maxamed cabdilaahi Shinila News saylac wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaaneedka Soomaalida Dr. Yusuf Maxamed Cali ayaa dhagax dhigay cusbitaalka gobolka City oo laga dhisay magaalada Biki isla markaasina ay ku baxayso lacag dhan 32 milyan oo bir iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Biki iyo nawaaxigeedu aad ugu riyaaqeen isla markaasina ay ugu mahad celiyeen xukuumadda dowlad deegaaneedka Soomaalida oo iyadu fursad u siisay in laga fuliyo cusbitaalkan magaalada Biki munaasabadii dhagax dhigga oo ay ka soo qayb galeen bulshada magaalada Biki iyo mas'uuliyiinta kala duwan ayaa waxa hadal ka soo jeediyay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaaneedka Soomaalida Dr. Yusuf Maxamed Cali wuxuuna in cusbitaalka laga fulinayo magaalada Biki uu kaalin fiican ka qaadan doono wax ka tarka baahidii adeega caafimaadka haysan jirtay bulshada gobolka City gaar ahaan magaalada Biki iyo nawaaxigeeda isla markaasina laga sugayo inay ka faa'iideystaan adeega caafimaadka ay ka heli doonaan iyo fursadaha shaqo u abuuri karo inta uu socdo dhismuhu geesta kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Afdamudane Mawlid ayaa tilmaamay cusbitaalkan heer gobol ee laga fulinayo magaalada Biki oo fursad u ay heleen bulshada ku dhaqan magaalada Biki iyo nawaaxigeeda looga baahan yahay inay ka qaataan kaalintooda isla markaasina ay inay ka qaataan doorkooda dhismaha cusbitaalkan isla markaasina ay uga faa'iideystaan sida ugu habboon sidoo kale bulshada magaalada Biki ayaa aad ugu riyaaqay dhismaha cusbitaalkan maadaama ay kaga raysan doonaan dhibaatooyinkii baahida raasashada adeega caafimaadka ay u doonan jireen meelo dhaadheer iyo ku aad ugu mahad celiya xukuumadda dowlad deegaaneedka Soomaalida cusbitaalkan gobolka City oo laga fulinayo magaalada Biki ayaa waxa ku bixi doonta miisaaniyadan 32 milyan oo bir waxaana la filayaa inuu qayb ka qaadan doono baahidii adeega caafimaad ee haysan jirtay bulshada ku dhaqan magaalada Biki iyo nawaaxigeeda
dadweynaha ku dhaqan deegaanka aashacaddo ayaa cabasho xoogan ka muujiyey biyo-yaraan soo food saartay kadib markii uu daadjabiyey dabaloladii ku dhex taalay dixda magaaladaasi aashacaddo taasoo ay ku tilmaameen in biyahaasi guud ahaanba ay yaraadeen haddaba dadweynahana qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in biyo-yaraantani ay muddooyinkii ugu dambaysay soo noqnoqonaysay qaarkood waxaa hadalladooda ka mid ahaa wax biyoho lanoo qabtay iyo wax haddii ilaahay xagga caafimaadka lanooga qabtay waan gartay iyo wax haddii ilaahay laga helo kaasoo ha iscaawita lanoogu dhisay waan gartay u wala daloodaa waxa weeyaan waa iskoolka waan gartay soo garan maysid midna ma hayno waan gartay falantiyaar baa ku dhahlaada anagu waan gartay Itoobiya waxa u dhaxaynaa Somaliland waan gartay Djibouti waxa u dhaxaynaa waan gartay in Somaliland waan gartay degmada Sayla wixii ka dhaca lama dhamay karo arrin laguma dhamay karo waan gartay farsamo laguma dhamay karo waan gartay soo garamaysi waan gartay iyada daadadkii baa ku fudmay oo dhan walba ka galay waan gartay waana badda ku taala waxa lagu nooliyay waan gartay xagga ceelashay noqotay waan gartay 23 sano midna waxna looma qaban tabalulooyin waagii la sameeyo wala dumay waa ku tusay ma ku wareegnaa aan ku dhaasan waan doonaynaa waan gartay daraadaha ku hoorsanana waan doonaynaa waan gartay waan doonaynaa waan gartay ma sha Allah ya ilaahay dhameeyo waa ilaahay wax walbaan iskaga baahanay inina iniga xaqna urliina dawaan in xaq dhowrayna inteeda waan gartay in maxaad ugu baaqaysaa xukuumaddu inay ka qabato biyaha kaasa iikood hay hay badala soo gashanay waan waan kala bahay dambe taan waxaan ka hadalnaa qaybta caafimaadka xooga hadal gabadhu haday uur leedahay haday dhiig baxdo haday dhasho umulisooyin malaha maxay haydeen dhakhtar dhiig bixin ka daweynaya maxay dhiig jooshin malaha halka halis weeyaan qofka serious ah gaari lagu qaada ya caafimaadka xoog baan uga liidanaa waxbarashada imika macallimiintu wax way dhigaan laakiin sabrafad male computer male waxba male meesha quraan male carabi male wax male waxbarashada xoog bay uga liidataa caafimaadka xoog buu uga liitaa wax abaabulayo imanayaan haba yaraatee ma aragnaaba maanta haba noogu horeyso wax maxaan qabtiinaa yaraaba ya marka cod bixinta u horeyso waxaan doonaynaa inaan noo yimaadin waxbarashada dad xoojinaya ono de maxay hadee loo abaabula iyo qaybta caafimaadka idan farmasiirna waa laga furaayo maxay xanaaneen ya marka Soomaaliland aad waxaan ugu caawinaynaa biyaha caafimaadka iyo waxbarashada laba saddexdaaba inaan ka cadilana anaku waxaan u dhaxaynaa Djibouti iyo Boorman u dhaxaynaa Boorman waxba noogama yimaadeen Djibouti waxay nagu halaynaysaa Soomaaliland marka anaku hadaan ciisaha nahay jooga halkan degmadan aashacdo waan cadilanahay waxaan dadkayga jooga qurbada jooga inaynu soo gaaraan inaynu soo gargaaraan moqolaan waxaan oo ku leeyahay anagu horta wax kasta waa iska baahanahay baylaad meesha aad bay ku badan tahay dhaqaale xumaan nagu disay odayna anagu malihin ma garatay ubadka iyo biyuhuba wallahi si weyn dhaqaale weyn marka baahanahay ubadku dareen weyn bay qabaan iyo koob ka haday aad u timaado waxba ma daweyso kuwa loo sakaraad ma yiraahdeen kar waa fuud wala dhaafiya sayla keena qornaya soo qaad qornaya oo halka kii sakaraada soo qaado maxay hayday dhakhtarka keena sayla keena xagaa baan joogtaa halka ka ogaynta oor baa la tabcaan baa tahay ilmaadka taa tabcaan buu yahay xageed ka gaar halka waana dhibaatooyin halka ka haysata biyaha qudhooda toon baan u baahanay waxaan u baahanay macallin kaariyoona maxay hayday dumarka ku riixdaan way daalan dumarku tu taag daran bay leeyahay abaarana soo daashay tu weyn bay leeyahay tu uur leeyahay tu lamaan bay leeyahay oo cuntada ku filan bay leeyahay dadku saas isku dhaxdaasay adiga hooyo mahadsan dadkayga mahadsan anagu saas dhaqaal xumo u baahanahay si kastaba ha haatee xilliga xagaagii ayaa biyaha xoog loo isticmaalaa dadaba deegaanka aashacadda ayaa meesha waxa ka baxday kaalintii biyaha iyo waxbarashada xuseen maxamed cabdilaahi Shinila News magaalada Sayla markii deeq lacageed ay u soo dirtay gabdho ku dhaqan dalka Ingiriiska deeqdaas oo iska soo ururiyeen wiilka yar ee xanuunsanaya kadib markii laga baahiyay shabakada caalamiga ayaa waxa deeqdaasi guddoonsiyay anigoo ah wariye Cabdisoon Maxamed Cabdilaahi isla markaasina uu ka meed celiyay dadkii iyagu deeqdan soo day gabdhaha deeqdan soo diray ayaa ku dhaqan arliga dalkaasi Ingiriiska oo ay ka mid tahay Sucaad Axmed waxayna u mahadnaqday hooyadana dhashay dadkii deeqdan soo diray
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wiilkan yar daawadayaal aad aragteen wanagii ka soo baahinay saad u aragteen website-ka in kadib gabdho jooga dalka Ingiriiska gabadha Sucaad iyo gabdho kale ayaa iska soo ururiyay lacagta aan gaarsiinay waa $400 walaalayaal waxaan naga codsanaynaa inaad ku dayataan intii ka dadaasheen aad baan ugu mahadnaqayaa sida weyn soo gaarsiiseen هذا هو لعبتي سوق قاعدة لعبتي ويسوق قاعدة أفر بقول بيسوق قاعدة مارك إنساني آخر دي الدنيا ده بكل يبانه جنة ده مارك إنساني إلهي هاي نفر آخر دي الدنيا ده مارك إنساني وحيادي صدرتنا ويسوق قاعدة بس ده مارك إنساني نبضي عارو أفرتي بقول له ويسوق قاعدة وحي هدي إلهي يمكن صور دي بنا واسدة هدي كرنا مارك إنساني بس ده هو كل بان آخرت يا الدنيا ده بحوجين الله ينقل بان مراه الجنة الله يني وظفر sidoo kale waxa ka dareen celiyay dhalinyarada magaalada Xariir isla markaasina ku amaanay dadkii iyagu soo diray dadyoga muxsiniintana ugu baaqay in sidoo kale ay ugu soo deegaan dadkii deeqdan soo halkii xanuunsanaya arinta waa ma aragtay ilaahay baan uga barnay inuu khayr ugu bedelo wixii kale karaankooga u heli karayaan walaalkooga buka ayaan leenahay soo siiyaan leenahay walaalkeen qurba joogta waxaan leenahay deegaanka u dhalatay inay dadkooga iloobin inay dadkooga xasuusnaadaan walaalooga xanuunsanaya wixii ma aragtay ay qaban karayaan ha u qabtaan leenahay maadaama waxaan leenahay dhalinyarada magaalada hadaan nahay walaalkeen waxa uu soo dinaa 400 soo diran way soo gaadhay waa in inaga mahad celinay waa in ugu abaal qabnaa waxaan ilaahay doonana maaha waxaad u heli kartiin soo dira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal qurba joogta dibadda waxaan ku codsanaa sida ay ku dhalatay gobolka Silil ina walaalkiina maanta dhibaatada haysata ay u soo gargaareen ay $400 ay soo gaadhay waana ka gudoonay ilaahay baan ka jisaysiinana inay walaalayaashooda dhibaatada ku dhacday ay soo gargaaraan maantana hooyadiina kan dhashay way ku farxday maxadna uu niisoo celisay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kastibaha haatee wiilkan yar ee xanuunsanayay ayaa guud ahaanba waxaa baahisay shabakada caalamiga ee Shinilan News isla markaasina waxa uu soo martay deeq lacageed oo dhan wariye Cabdisoon Maxamed Cabdilaahi Shinilan News Saylac deeqda raashinka oo ka timiday ururka Raban ee dalka Djibouti fadhigiisu yahay ayaa waxa loo qaybiyay deegaamada Karure oo Sali iyo Sabay munaasabadii arrinkaasi waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolada Saylac iyo Lughaya Maxamed Muuse Bucul Booqbuuni deeqdan oo ka koobnayd bariis sonkor iyo daqiiq iyo saliid ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa deeqdani waxa ka faa'iideystay 600 oo qoys dadweynaha deeqdani ka faa'iideystay ayaa dhankooda cabiray in deeqdani ay aad ugu baahnaayeen isla markaana waxay u mahadnaqeen ururka Ramaad ugu horeyntii ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolada Saylac iyo Lughaya Maxamed Muuse Bucul Booqbuuni maanta waxaan halkan xaflad kaga soo qaybgalay raashin qaybin raashinkaas deegaanku way gudoomeen waa 200 oo qoys waxa loo qaybshay raashinkaas oo ka kooban saliid daqiiq bariis iyo sonkor وجدون وعن وانا طلابة ونحسن وددال أي موجين قرر كرمت إيجالية جيبوتي بس وما تسيه وضياشي أيانا يد لنيرتي متضوعين تها الدجال النوع شعبي عن بدويني يكون ولا كرور داق الجالية جيبوتي قرر كرمت إن السوق جالسين كلاها سنكر بريس زريد هي الدقيق عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو مهد علينا أورور كان رمض ديقنا سوق جالسية أنا كون حيان عبارو إلهي بنقوم مهدنا عندي نوك أنتنا ونقوم مهدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته haatee muddooyinkii ugu dambeysay ayaa deeqdani baahi weyn loo qabay isla markaasina deegaamadaasi ay abaartii dabada dheereed ka jirtay Cabdisoon Maxamed Cabdilaahi shabakada caalamiga Shinilan News magaalada Saylac shabakada caalamiga Shinilan News oo maalmahan socod ku mareysay guud ahaanba deegaamada gobolka Saraar ayaa deegaanka Geerisa waxaanu kula kulanay guryihii dhawaan ku gubtay magaalada Geerisa kuwaas oo iyagu noqday guryo kuwa nooca loo yaqaano sandaqaalaha
oo iyagu halkaasi ku shufbeelay ayaa waxaan lahayn kasakowha inta yaray qurbajoogta beesha ciise ay soo gaarsiinayeen deegaamadaasi ayaa balse xukuumadda somalilan gardaar degdega ayna soo gaarsiin guryahan oo iyagu ilaa maalintii ay gubteen ilaa hadda aanay cid jawaab ka bixisay aana jirin kasakow in yar oo qurbajooga oo beesha ciise oo iyagu in yar u soo taray si kastaba ha ahaatee dadweynaha qaarkood ayaa cabasho xoogan waxay ka muujiyeen guryahani gubtay iyagoona sheegay in guryahani laga dhiso waxayna tilmaameen in maalin kastaba kamaradun laga doobo islamarkaasina guryahan dhismahooda ayna cid dhag jala qusin qaarkood oo arrimahaasi ka hadlayna waxay waxaad walaal iga siisaa faahfaahin guryihii gubtay iyo xukuumadda Soomaaliland waxay ka qabatay iyo baahiyaha jira magaalada waxa leeyahay wax ka qabatay oo wali martaan guryaha gubtay daadad ka galay dadka dhibaatada haysa cid wax ka qabatay wali oo ka hayna waan gartay bal naga duubaa oo xunbaa guriyun baa layraa wax duubitaan ka meel wax ka ma jiro laakiin dadka Soomaaliland waxa way dhibaato aad iyo aad buu isaga qaban dadkani waxay hantoodii way ku gubatay oo waxa hantilaan way ku gubatay wax dambe ay ku dhistaan way waayeen وادرتن guriga sudaad ku galayo waxa meesha galna waa askar ciidan iyo martan xaasdayda weey iyo dadka shacabka yaala marka aan waxaan u leeyahay Soomaaliland ma degdeg martan ay magaalada geersa oo guriga dadka aad uga galeen iyo aan ku dabka u galay si degdeg wax loo qabto aad baan kaaga mahad celinaya anigoo Cabdisaan Maxamed Cabdilaahi ina cabashadaada waan gaarsiinayaa caalamka iyo warbaahinta kaleba si kastaba ha ahaatee guryahan ayaa ku shufbeelay magaalada Geerisa iyagoona hanti badan iyo khasaare xoogan uu dabkii ka kacay magaalada Geerisa uu soo gaarsiiyay Cabdisaan Maxamed Cabdilaahi Shinilan News magaalada Saylac